mudan ninka magaciisu waa Jendaal wuxuuna leeyahay warshado aad u fara badan wuxuuna ka ganacsadaa daroogada iyo wixii la mid ah wuxuuna ka mid yahay tuugada dadka laysa mudan ninka magaciisu waa Laalsiin wuxuuna leeyahay shirkado badan isaga tuugnimadiisana waxay tahay dhulal ayuu xoog ku haystaa dhulalkaasna waxaa leh dad masaakiin ah laakiin anaga wax cadeen uma hayno waxa kale oo jiro dhulal badan oo dawladda ka iibsaday mudane ninka magaciisu waa Qaan waa tuug weyn lacag darteedana wax walba ayuu sameeynaya dad ayuu dilayaa naaga ayuu kufsanaya wuxuuna la shaqeeyaa Laalsiin iyo Jendaal laakiin mudane ilaa iyo hadda wax cadeen uma hayno waxaan hubaa haddii cadeen loo helo afartan tuugo magaalada dhan xasilooni in la helay xal kale ma jiro waa garsi laakiin mid ayaan la yaabanahay maadaama dadkan aad sidaas ogtiin waa maxay dhibka jira oo aad u soo qaban weydeen dhib waa jira mudane dhibka jira ayaa wuxuu yahay mudane wax kale ma ahan waa sharciga macnahaaga waxa waaye tani nimankan waa niman lacag la dii maxkamadda la geeyo way badbaadayaan waayo abukaatooyin badan ay qabsanayaan dacwadooda ayagoo meel gaarin ayay maxkamadda ka soo degayaan waan dareemi karaa dhibaatadaad ka hadlaysid laakiin sidaas ay tahay gacmaha inaad ka laabataan ma aha waan ogahay taliye waa inaad dhaqdhaqaaq samaysaan waan muujinaynaa dhaqdhaqaaq annaga laakiin waxaan u baahannahay nin howlkar ah oo annaga nala shaqeeya habeenii maalin oo noo soo ogaada nimankaas meesha ay ku nool yihiin meesha joogaan kadib annagana waa adiri karnaa basana raadkooda dhan marna haddaan helno informationkooda annaga dhib nagu qaadan mayso inaan soo qaban nimankan maxkamaddana awood ugu badan ma helayaan runtii waan dareemi karaa hadalka aad ku hadlaysid waana la socdaa laakiin su'aasha meesha taallaa waxay tahay ninka hawsha loo dirayo inuu aamin yahay inuu sharciga iyo shacabkiisa una khiyaanin yaa damaanad qaadaya tali aniga waxaan kuu sheegayaa ninka isku daya in inta hol loo diro sharciga iyo ciidanka qiyaama aniga waxaan ballan kaga qaadayaa in waajibka uu la marsiiyo waaya hadday sidaas tahay habeen dambe saacaddan oo kale aan saragno tali waxba xagee soo aadan anba sharciga waa naqaanaa war ma anigaad leedahay xaggayga maan sharciga waa naqaanaa hadalkaasna waan ogahay waxa ka keenaya in aad la shaqayso ninka la yiraahdo Laalsiin asagana isku haleynaysa in uu ku badbaadinayo sidaas daraadeed ka keenaysa dadkan hadda waxa ku run maskaxdaada inaad ka saarto Laalsiin iyo wixii soo raaca wax badan magaaladan way ku tunteen laakiin hadda aniga ayaa u jooga kaba la'aan ayaan magaalada uga saaraya kuwayaan washtikooda meeshaan waxaa mugdiya dadna warag ma kufaana bacawista meeshaan maxkamadda ma ahayd kuwa iga celiya mas maxkamadda waa laga guuraysa camal iga celiya kuwa wani tuuga garsaaraha wani tuuga way garaasin xalaala liki dhaafo war yaa u qaylinaysaa adiga xayawaan ma ka adilayso waa ina xayawaan noqotaa deeba maxaa samaystay aniga waxaan sameeyay iska daa laakiin adiga waxaa tahay xayawaan xun oo lacag darteeda masaakiinta indhaha la u laynaya eeyahow awoodda jantaa ayaad doonaysaa inaad gacanta la soo gashid soo maaha waan kuu digayaa inaad gacanta kala baxdid ayaa kuu ron haddii kale waad ku baaba'aysaa idhegayso dadka markay dhintaan kadib ayaa la gubaa laakiinse aniga waxaa igu balana inaad noqoto qofka ugu horeeyo oo isagoo nool la gubayo waana iga dhab Please subscribe Captain G's.